iimaanku shaygu qiraa lagu qabooba in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سورة الفاتحة تفسير كذا المرينا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما هذه الله عبارة رب العالمين عالمين تؤردن يسقوا ربي جوها يسكلها الرحمن naxariistiisu caamka ahayde cid walo adduunyadan joogtaba gaarsiiyey arraxiimi naxariistiisu gaarka ahayd ee naxariistiisa ilaahay ku gooni yeelayay maalinta qiyaamaha iyo aakhiro awliyadiisa iyo dadka isaga rumeeyey maaliki yowmiddiin maalinta qiyaamaha waa ilaaha isagu iska leh wax walba iska leh iyaaka nacbudu ilaahayow keligaa baanu ku caabudaynaa وإياك نستعين كلجابان وجرجار كادونينا اهدنا الصراط اهدنا إلهي ونجوها جاتش أو نجوها نوني ونجو توسي الصراط والضدي أما تشتكي المستقيمة توصنع صراط الذين إلهي وكوي تشتكو ذا نجوها جاتش ونجوها نوني أنعمت عليهم أربر واقيسي خيرك إيه برارها إيه برواقضة عتسيسي ومركات دم مؤمنين تيا غير المغضوب عليهم كوي لو عراضين آنا هين ولا الضالين كوي هلابين آنا هين سورة معنى هذا مركز لسوق وابا وسيداس ويه وحيكون بلابنت سورة مهد إلهي سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين waxay ka mid tahay shanta suuradood ee quraanka kariimka ah ku bilaabma erayga alxamdulilah suuradan imika aynu marayna suuratul faatiha suuratul an'aam suuratul saba suuratul faatir iyo waxaan dhaafay suuratul kahf shanta suuradood xamdigu ashaa ku jirta alxamd waxay leeyihiin culimadu waa lil istiqraaq وحويان waxay sheegaysaa ama u taagan tahay macnaha ay sheegayso erayga kullu oo kale kullu alhamdulillah ilaahayow mahad oo dhan adiga leh mahad hore iyo mid dambe iyo mid adoomaha adiga ay ku mahadiyaan iyo tadhexdooda ay ismahadiyaan wax oo dhan adaa leh garanayba ilaahay si toos ah marka loo mahadiyo dadku haday ismahadiyaan sidee buu ilaahay mahadooda ku yeelanaya de wuxuu ku yeelanayaa qofka la mahadiyay ee wanaaga laga sheegtay yaa wanaajiyay ilaahay baa wanaajiyay marka ilaahay baa ku amaana subhanahu wa ta'ala marka waxa la yiraahdaa lil istiqraaq هذه اللفظة دالة على الاستغراق حمدك إسقاهي وحمد كامل كامل جميع الوجوه لنعيض أردن ما هذا أبو إلهي الليل هدو داق كسيانا مهد بولي هدو ديب كبر هذا مهد أيو كله إلهي سبحانه وتعالى وحفصر يا النبي عليه الصلاة والسلام هدي جيسي مركو إلهي كهلا سبحانه وتعالى وحونا جو حورنشر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات إلهي بقى مهد إلهي وحول بقى نعمديس أي كل ما يستر مين مركو اللي بالرسول كسوق قاعدنا وحورنشر الحمد لله على كل حال إلهي بقى ما هذا السجع إسكال حارض والبا وحن شعلها يبي يسوق قارينه أو دبها يقول دعاء مهد بولاي الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحي شيء سألوهية ذا إلهي إنه يسوي ياك عبادة يا مهد يا حمد يش رب العالمين وحي شيء سربوبية ذا إلهي إنه يهاي ربك يسوي عيد والبا وأبو ري إذن الكاو حكم وقنية نفتي سيلها وحكوس فيي ألوهية قبل الربوبية تاسنوات يوتاجناين رسول شرنا
waxa in badan dadku ay diidanayeen cibaadada ilaahay markaasaa rususha lagu soo diri jiray dadka inay ogolaysiiyaan cibaadada in badan oo kamidii rabbinimada ilaahay waabay ogolaayeen marka muhiimadda ay sii leedahay cibaadada alla in lagu khaas yeelo ilaahay u horeysiiyey saaynu arkayno rabbul caalamiin caalamiintoo dhan buu rabbi u yahay ereyga rabbi macnaha uu sheegayaa waxa weeye wuu abuuray waanu leeyahay waanu maamulaa waanu arsaaqaa intaa cid noqon kartaa ma jirto ilaahay mooyaane subxaana wa tacaala caalamiintu waxa weeye ciddii isaga ka soo hadhay oo dhan fircoon markuu nebi muuse ku yidhi rabbulcaalamiinku muxuu ahaa ayaa wuxuu ihi rabu الsamaawaati wاlardi wamaa baynahuma ilaaha abuuray weeye cirka iyo dhulka iyo inta ka dhaxaysaba ee iska leh marka caalamiintoo dhan caalamka sare iyo caalamka hoose iyo meel walba ilaahay baa abuuray isagu iska leh subxaana wa tacaala waa cumuumu rubuubiyat اllaahi tacaala lijamiici اlcaalam marka la eego suuraddu towxiidka saddexdiisa qayboodba way tilmaamaysaa rubuubiyadii ilaahay inuu yahay isagu rabbiga caalamka way sheegtay rabbulcaalamiin uluuhiyadii ilaahay iyo inuu ilaahay cibaado xaq u yeeshay bay tilmaamaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin alasmaa wasifaat towxiid alasmaai wasifaat inuu ilaahay leeyahay sifooyin waa wanaagsan iyo magacyo waa wanaagsan bay sheegaysaa alraxmaan الraxiim maaliki yowm اddiin waxaa kusii xiga markaas alraxmaan الraxiim labadaa wasfi ama labadaa tilmaamood ilaahay baa iskale subxaana wa tacaala oo halkaa horun bay sii fasirayaanay raacayaanoo rabbulcaalamiin markii ilaahay uu soo xusay baa qofku wuxuu isweydiinaya talow rabbinimadaas ma waxa weeyaan rubuubiye intiqaam iyo ciqaab iyo cadaab iyo dhib uu ku jiro maya jawaabtu waxa weeyaan waa rubuubiya naxariis wadata alraxmaan الraxiim ilaahay naxariistiisa ballaadhan oo badan subxaana wa tacaala nawcu hadi rubuubiya rabbinimadaa ilaahay nooca ay tahay ayaa rabbi uu ku jawaabay alraxmaan الraxiim macnihii hore way leedahay oo gaal iyo islaam ba ilaahay nicmadiisa uu siiyey adduunyada oo adiga arkaya ay isugu naxariisanayaan naxariistiisa daraaddeed isagaana fasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo waxa uu ilaahay wuxuu leeyahay naxariistiisa boqol buu qaybiyey 99 jannaday ku dambeeyaan hal mid buu adduunkan keenay khalqigoo dhamina taasuu isugu naxariisanaya bal waxaa naxariista dunyadan taala ee xataa xayawaanka ee wax cuna ee sabca la yidhaahda wax ugaadhsada oo ilmihiisa yar ugu naxariisto naxariista taasaa ka mid ah bal naxariista intaa la eg baa ayaa mid ka mid ah adduunka la keenay maxaad u malayn 99 aad u weyn naxariista ilaahay qof guul darro badan baana naxariista ilaahay ka qada ilaahayna addoomaha wuxuu doonayaa inuu naxariisto oo uu badbaadiyo walaa yahliku cala allahi ilaa haalik mid isagu naxariista ilaahay iska diida mooyaan الرحمن الرحيم رحيمنا markaa waxa weeye nicmadii aakhiro dee awliyadiisu siinaya dadka ashahaatay isaga rumeeya adduunka iimaan kaga tegay sidoo aayadda ku cadeeyay wa kaana bil mu'miniina rahiima mu'miniintu buu naxariisanay ilaahay subxaanahu wa ta'ala culimada qayb kamidii waxay ku fasiraan الرحمن المنعم بجلائل النعم wa ilaaha bixiyo nicmooyinka waaweyn والرحيم المنعم بدقائق النعم waa ilaaha bixiya nicmooyinka qarsoon ee yaryar markaa nicmada waaweyn iyo tayar maxay kala nicmooyinka qaarkood dadka waa u muuqdaan inaad xoolo yeelato inaad dad yeelato inaad caafimaad leedahay waxaasoo dhan waxyaabo dadka u muuqdo wey nicmooyinka yaryarina waxa weeye nicmada uu qofku garto markuu waayo waxaa jira nicmooyin badan oo inta hore aanad fahamsanaynba inay nicmo tahayba laakiin markaad weydo un baad oranayso taasina waxaana miyaan haystay mabaan ogeynbe waanay badan yihiin nicmooyinkaas iyaaka nacbud maaliki yowm اddiin
مالك يوم الدين إلهي بقى مالك قيامها مالك هو إساق إسكاله وميانو الدنيا دينا لهاي ما يوحى الله وحا دونك يا لنا دادي الدنيا يا عالم كورنا إساق إسكاله نحا هذا مالك يوم الدين مالك قيامها إلهي وقونية للهانشاه لماذا وحي إليه وحا هريا sheegashooyinkii adduunyadan ka jiray adduunkan dad badan oo wuxuun iska sheegtaa jiray waa xoolahaygii waa daarahaygii waa waddankaygii lahaanshihii noocaas ahaa ee dadku ay sheegan jireen wax ayaa iska hadhay maalinta qiyaamahana ilaahay taa uu sii cadaynayaa wax alla wixii wuxuun sheegi jiray lahaa anaa leh su'aal baa la weydiinaya limanil mulku al-yawm maanta yaa wax leh jawaabtu maxay noqotay لله الواحد القهار إلهي با كليجي وحسكله كعيد كلامه جوابي ويده إلهي با يسوي جوابه عيد كلام وحليبه ما جرتبه معلن مid walo malik iyo malik iyo sheegan jiray halkaas uu ku haray oo iska aamus labada qirabo way jiraan malik yawmiddin iyo malik labadaba waa jiraan marka waxa jira malik aan malik ahayn iyo malik aan malik ahayn labadaba ilaahay uu yahay subhanahu wa ta'ala malikna uu yahay malikna uu ملك باجرة بقرة أو حوالهين إنك سيسكبا يرتايبا وكي وحيا شابه هذه أشار وحون حور تيستو هدو ملك بيها انت بضان لكن وشري كلام ملك آن مالك هين وحوالهين وحسن له بدن هاي إن تدكو أيهين دد مالكين وحله لكن آن ملك هين بقرني ولا هين لبدا بيل هاي والله سبحانه وتعالى سقى بقرنا وحنا له waxay aayadu muujinaysaa ithbaatu sifati al-ba'th wal-jazaa in aakhira jirto oo iman doonto in kasta in badan iska dhaga tiraan dadkan adduunyada ku nool abaal marina dambayso mudan in la xusuusto loo diyaar garoobo oo siday qaybkii hore iyo umadaha hore uga warantay aakhirana way ka waramaysaa adduunka waxa joogana way ka waramaysaa xaqu ilaahay leeyna way ka waramaysaa suuradu marka waxa mudan in loo amal falo إياك نعبد وإياك نستعين وحيت الماميان لبدا جملة استبيالا إن أدونك إلهي كليجي وعابديو كليجينا جرجار ويدي سنيو عيد جرجار لو ويديستو أما اللي عابدنا وحقوم مضان صفوين كون أكسن إله الله سبحانه وتعالى إله وحول بيس كله هي عبادة حقوياش يسجانا قرؤ لإن ده مرتين الله نقضاه وحلا وحي وأدونك عصنا يبقى يسجوا وقدمه waxa markaa aayadu ay cadaysay labadan arimood ba inay yihiin laba arimood oo Ilaahay ku gooniya cibaadada iyo isticaanada al-ibada xaq lillahi ta'ala waxana laga fahmayaa taa shayga loo yaqaan xasriga ama qasriga taqdiim al-ma'mul 'ala al-'amil waxyaabaha luqadii aynu sheegayna ku faa'iideynayso luqada carabiga haday tahay naxwada iyo balaaqada iyo ومواضيع ذي كورما هذه الشيء شيء قال إلى هذا القصر والحصر الإضافي والنسبي قيسي كلا دوناء مركب ما دام أرى جدا بين لها إياك الله بدل ما يلوط بوحق هرم مري معناها لقى فهم يا وحوية كلجا بانك عابدين كلجا أنا جرجار بانك ويدي سنين سدا سنة تهايو ده أنت أسود دليل بينه شيء عبادين ولا هاي كلجي ليه وحقوق ذا عد ولا بحق بالله إلهي حق كلي ولا إن إلهي كلي العابد استحديث في معاد كسر لا تدري ما حق الله على العباد حق إلهي الضماء وكل يوم تقارنا وين كلي عابدان استعانة دي نواسا سوكر إلهي كلي جبا جرجار لو يدي سنة هدي المركز تاهر جرنا يودع عبادة ذا دي لكن قفك ويرادو meelaha qaar ka sawtay ku soo aroortay in cid kale isticaano la weydiisan karo ilaahay baa uu tacaawanu ala albirri wa taqwa sama falka iyo isu kaashada la kacabsiga isticaanadaas maxay noqonaysaa isticaanada laba qaybood isticaanatu tafwiid wa isticaanatu musharaka isticaanatu tafwiid macnaheedu waxa weeyaan wax aan cid kale qaban karin oo ilaahay uu qaban kara kaliya subhanahu wa ta'ala oo أنا أضمه كوقا بنكر تا إلهي كلي بقى لو يديست استعانة التفويض نوال إلى إلهي بقى كلي لو بندقيا وأوحى أضمها كلا لقلق وستيق بنكر رواية يا كوبد بادين كرا يا دلك سين كرا يا كشنين كرا يا دب قدافي كرا أنت هذا إلهي سبحانه وتعالى عد كلام ماله
marka isticaanada waxa la yiraahdaa isticaanatu tafwiid isticaanatu musharaka baa jirto waa waxa ay adoomaha kale ku qaban karaan xogaa lacag bay ku siin karaan dacada marka ay saysan bay ka dhicin karaan waxyaabo badan oo adoomuhu ay ka caawin karaan baa jira marka taana musharaka la yiraahdo marka ta la ogol yahay sharcigu ogol yahay waa taa musharakada ee cid kale ku qaban karto taan cid kale ku qaban karaynina waa ilaahay subhanahu wa ta'ala takaligi u leeyahay sida darteed مثلا adoon dhintay oo kale waxba kuma qaban karo oo de shaqadiiba way ka dhamaatay isaga waa cadilana duca u baahan marka inaad barido ma adoon maqan oo aan kulaba joogin waxaanu ku qaban karaa inaad weydiisato ma laakiin adoomaha ku hor joogay kula jooga wixii ay ku qaban karaan isticaano wad weydiisan kartaa waa ka ilaahay oo tacaawan goorma adoomaha laftigoodu waxa ay ku qaban karaan goorma la weydiisan karaa waxa la weydiisan karayaa cinda alxaaja marka aad had iyo jeer baahato markaad baahataaba sharcigu kuu fasaxaya cid kale inaad codsi u qorato aad wax weydiisato haddii kale iska dah bukaan badan bariya badan baahi badan waa la isku nacasoomahay yay ku nicin oo lagu nicine ilaahayna wuxuu kugu jeclaadaa inaad codsi u gudbiso aad isaga wax weydiisato adoomuhuna waxay kugu nacaan inaad iyaga wax weydiisato wallahu yaqdabu in tarakta su'alahu wa banu adama hina yus'alu yaqdabu lahay uu ku carooda haddaad waxba weydiisan weydo oo ducaysan weydo oo baryi weydo adoomuhuna way ku caroodan haddaad wax weydiisato barraxmaanka iyo khalqiga ilaahay iyo khalqiga farqiga u dhaxeeya say u kala duwayne waxa kale culimadu ay leeyihiin waxaad cid wax weydiisan kartaa عند سرور به مركو قفكو كفر حسين وحالدا قاركود بو قفكو دنينيا inaad wax ama cilmi weydiisato ama cuudiyo xoolo weydiisato oo isaga taas ay ka farxinaysaa u jecel yahay taas oo kalena waa la weydiisan karaa dib kuma jiro lifaaqana culimadu hadiya jeer waasi fasireen ihdina as-siraat al-mustaqim waxyaabaha in ilaahay isticaana ka weydiisanay isticaanadii waa socota ilaahay oo jidka toosan nagu hanuuni yaa kugu hanuunin kara jidka toosan ilaahay mooyaane ilaahay ba ayaa kugu hanuuninaya marka isticaanadii bay daba taalaayo ilaahay oo jidka toosan nagu hanuuni waxyaabaha nu gargaarka isticaanada kaaga doonaynay gargaar ayuu ka mid tahay inaad hanuun nasiiso hanuun kana ilaahay baa bixiya subhanahu wa ta'ala intaan halka hore soo dhaafin aayada hore culimadu waxay leeyihiin imika nacbudu wa nastaciin way kala horeeyaan nacbudu baa horeysa nastaciinuna way dambaysa waana ka xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu ku soo marayna xadiid alqudsigii in intaa horena ilaahay u yidhi aniga ale inta dambena addoonka ale nacbudu waa cibaadadii ilaahay baa leh intan dambena nastaciinuna addoonkii baa leh oo ilaahay wax weydiisanaya marka waxa laga sirta laga fahmaya latiifada ku jirta waxa weeye markaad ilaahay wax ka doonayso wixiisa sii ilaahay waxbaynu ka doonaynaa Soomaa waynu baryaynaa horta amarkiisa qaado cibaadu ayuu ka doonayaa adigu baad wax ku helayso u baahan tahay horta cibaadadiisa la kaalay oo amarkiisa qaado markaas aad codsigaaga soo qadimiyo aadaabtu waxa weeye wixii aad doonayso markaas aad heli bal ka soo qaad tusaale nin baa madaxa adiguna shaqaalihiisaad ka mid tahay marka wuxuu yidhi qofka caynka sameeya hawlaha qabta waxaan ugu abaalgudi doonaa waxa dadkii kale way qabteen mid baa isagoo halkiisii iska fadhiyo ninkii madaxdaaba ku soo noqdo wuxuu leeyahay anigu wixii aad ii dirtay maan qabanin laakiin waxaan ka doonaya shardi baaba ku xidhnaaba waxay codsiga markaad fuliso amarada ayaad codsigaaga heli doontaa ninka madaxdii wuxuu oranayaa wixii aan ku diray ma qabanin ma qabanaya ii dhib waxaan ka doonaya wuxuu istaahilaa marka in la xidho iyo in la garaaco iyo in la fogeeyaba walillaahi almathalu al'ala tilmaantii khalqiga haddaad saa u fahamta ilaahay khaaliqaha ku abuuray maxaad u malaysaa alla wuxuu wa idaa sa'alaka cibaadi anni fa inni qariib ujiibu da'wata daa'i idaa da'an falyastajiibu li walyu'minuu bi la'allahum yarshuduun si aan ducadooda u aqbala dadka iyo codsiyadooda isticaanadooda iyo gargaarkooda iyo waxay iga doonayaan oo dhan si aan uga yeelo horta aniga hay aqbaleen hana i rumeeyeen inta i rumeeyaan horta hay aqbaleen in ilaahay diiday muxuu wax kaga doonaya subhanahu wa ta'ala waxa labaad oo nacbudu iyo nastaciin jamac bay u taagan yihiin erayadu
iyaaka acbudu iyaaka astaciinu ma aha laakiin waa jamac marka halkaana waxaa laga fahmayaa bay leeyihin culimadu sida shareecadduba inoo dejisay in cibaadadu ay ku fiican tahay jamaca iyo wada jirka salaadii baa jamaca oo ku fadli badatay 720 darajo xajkii baan jamac la-aantiiba ansaxaynin jihaadkii baa jamaca iskaashigii wixii khayra ayaa watacaawanuu cala albiri wataqwa baa la leeyahay waxaa kale oo alamru bilmacruuf wanahyu can lmunkar iyo wixii wanaagsan tacaawun iyo iskaashi marka mar walba wixii cibaado ah iyo khayr ah inay iskaashiga ku fiican yihiin kale socodkuna aanu fiicnayn oo shaydaankuba kaa eryi karo xataa cilmiga barashadiisa iminka haddaad halkaa u baxdo oo aad tidhaahda anigu lifekan ka dhagaysanaya xaafadayda iyo haddaad xalqadan soo fadhiisata ma isku baraka maaha lifeka kol islaantii baa mar koob shaaha ku keenaysa marna ilmihii yaraabaa ku jiiraya marna kii meheraddaa ku odhanaya ii saxeex dee ictikaafkana ma helaysa maasha nafina waa daciifa marka cid la cibaadaysanaysa tartan iyo suxulduub bay ku jirtaan iyo cid ay eeganayso oo wuxuu arkayaa dadkii oo ka dheereeyey laakiin marka keligii uu noqdo shaydaanku maalinba in yar buu turkinaya ilaa uu wixii hayayba ka laababa nacbudu wanastaciin asraarta ku jirta ayaa ay ka mid tahay الصراط المستقيم صراط وحو نقضابي لين علماء مد توصى إيا مد قلع كو يرجر لبضبا لكن أرنتها وحا كساري المستقيم مركا جيدك إلهي الله مروا مد توصى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سورة الأنعام إلهي وحو جيدك سوا جيدك يجي توصنايا صامرة وإسلام لماذا مركا الإسلام كصفي عنه الرعضة waad soconaysaa ilaa aad ilaahay sor taagto isagoo kaa raaliya qiyaamaha ilaa aad jannada albaabkeeda ka gasho haddii aanu jidkaasi kii ilaahay ahayna mustaqiim maaha waa qalooc mar kalaa jidkii lasii iftiimiyey jidkii mustaqiimka ahaayoo siraada aladiina ancamta calayhim gayr almaqduubi calayhim wala daaliin dadku marka laga xagga nicmadiiyo la-aanteeda waa 3 qaybood qolo nicmada ilaahay ku qabowsaday oo u barwaaqeeyay oo waa dadka ilaahay rumeeyay ka amar qaatay allah inaga dhigo kuwaas waa qolada labaadna waxa weeye qaar aan baday oo ka dhacay nicmadii oo waayayba wala daaliin iyo qaar iska daa intay nicmo helaana looba cadhoodayba almaqduubi calayhim saddexdaa qaybood bay dadkii adduunyada ku noolaaba u qaybsan yihiin gaaladiina labadaasay usii qaybsan yihiin kuwa kufriga ku halaabay iyo kuwo kale oo looba cadhooday muslimkuna waa dadkaa loo nicmeeyey qur-aanku isagaa isfasiraya sidii horeba aynu usoo sheegnay dadkan ilaahay u nicmeeyey ee aynu codsanayna in jidkooda ilaahayna marya waa kuwey suuradeebaa ilaahay uu ku tilmaamay suuratu annisaa ayaa ilaahay uu ku caddeeyey subxaana wa tacaala waman yudic illaaha waarasuul faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaa'ika rafiiqa عدة إلهي رسولك أضيع كتلا قادت جدك إن نعمة إلهي الشو حكاحي قوم إن إلهي أضيع وأنبياء نبيدي وإذا قال هذا كل شهيدي تذكي صالحين تاها وناق بدنا ويرهم تبضنا إلا للرفيق للراع لو هلينا كواس أولا يكسبوا لهي وهم لي سبحانه وتعالى الصراط المستقيم marka wuxuu kamid yahay waxyaabaha ilaahay oo addoomaha ugu nicmeeyay habeen iyo maalin bada ilaahay aynu bariyayna inuu inagu hanuuniyo siraadul mustaqiim culimadu waxay leeyihiin laba arrimood ba aayadan dambe ilaahay ku baraarujiyo ku diidi kara al-inaad wal jahl inaad iyo jahl anaadku waa wax keeni kara qofkii xaqii garanaya ayaa iska diidaya waa sida kuwa maqduubi calayhi waa yahuudi iyagoo xaqa garanaya ayay iska barbarbareen kitaabkiina gacmahooda ku bedeleen marka dad badan baa waxa dhacda iyagoo xaqa garanaya canaad daraadi inay u barbarbaraan waa wadaad xume ama ka loox tuurka ama uu kitaab tuuray la yiraahdo uu garanaya xaqi laakiin uu jirsiinaya siraadul mustaqiim marka wuxuu ku seegay canaad daraadi ara allu mutaystay marka almaqduubi calayhi qaybna jahli baa haya wala daaliin oo jidkan toosan waxa weydaariyay wuu anbaday waxaan diin ahayn baabu diin ka dhiganayaaba sida ilaahay suuratul hadiid aakhirkeeda oo ku tilmaamay warahbaaniyatan ibtadacuha ma katabnaha calayhim illa ibtigaa ridwaanillah
suufinimo iska dhambasheenoo nimankii diinta kiristanka haystay iyo wadaadadoodii waxaan diin ahayn bay diin ka dhigteen iyo bidca marka dariiqa wanaagsan jahligaasina wuu ku weydaarin karaa labadaba markaa waxaa laga baxayaa diintoo la barto lana dhaqan geliyo aayadda waxaa ka muuqanaya labada qolo waxa sii xumaan badan jidkan toosan kuwa u seegay canaa daraadii sidaa daraaddeed buu ilaahay soo horreysiiyey almaqduubi calayhim si kale haddaad ugu fiirsato almaqduubi calayhim waa ismi mafcuul addaaliina waa ismi faacil waa cilmigii naxwada ma jecli had iyo jeer naxwada inaan aada ugu dheeraano oo aynu u dhex gallo dee dadka caadigaabaa ka dhacaya oo waa arrin dalabada iyo dadka aqoon-yahanka ah ayuunbaa kula fahmi kara markaa intaad naxwada ka sheekaynayso waxaa laga yaabaa dadka caadiga inaanay kula qabsan saa daraaddeed macna ahaan unaynu ku keenno mooyaane inaynu faahfaahinteeda badinno waynu ka soo yaro gaabsan insha allahu tacaala almaqduubi calayhim waa macno sheegaya waa loo cadhooday kuwanna way hallaabeen waa faacil iyo mafcuul farqiga udhexeeya waxa weeyaan bay leeyihin culimadu ismigaa mafcuul waxa uu sheegayaa waa loo cadhooday ilaahay baa u cadhooday waxa kaloo u cadhooday cid kastoo ilaahay ka amar qaadanaysa oo addoomihiisa oo mu'miniinta oo awliyada ah ilaahay baa yuhuud iyo gaal nacdalay innaguna waynu wada nacdalaynaa wixii ilaahay ka amar qaatoo dhan sidaa daraaddeed baa ayaa wasfigaa ismiga mafcuula u yimi ciddii ilaahay ka amar qaadanaysa subxaana wa tacaala ilaahay baa nacdalay iyo ciddii ka amar qaadanaysaba marka labada wasfi macnahaasay sheegayaan marka cadhadii ilaahayna way ku dhacday oo ilaahay baa nacdalay waxaana sii nacdalay ciddii ilaahay aqbashay subxaana wa tacaala wuxuu ilaahay yidhi iyaguna odhanaya marka suuratu lfaatixa fadligeedu aada iyo aad u badan yahay waxyaabahaasoo dhan bay inoo sheegaysaa adaabta kale aynu ka arkaynaa waxa weeye siraad aladiina ancamta calayhim waxallo wixii khayra iyo wixii fadliya ilaahay baa la siiyaa oo loo nicmeeyaa waalfadlu ilayh wixii khayr oo dhan ilaahay baa loo nisbeeya ancamta wixii sharana dadkaa loo nisbeeyaa washaru laysa ilayk adaabta fiican weeye saa daraaddeed baa isnaadkaas saa u noqday aad bay u habboonta waana waajib xarakada qur-aanka in la ilaaliyo waxaa laga yaabaa xarako qura oo uu qofku bedelo xaraf iska daayo inay macnaha oo dhan bedesho sidaa daraaddeed bay waajib tahay qofka qur-aanka baranaya inuu mucallin yeesho carabkiisa loo saxo ka soo qaad haddaad tidhaahda ancamtu calayhim maxay noqonaysaa anaa u nicmeeyey dadka weeye adigaaba is-ilaah gareeyey ilaah baad iska dhigtay markaasoo ancamtu calayhim anigaa u nicmeeye weeye ka waran haddaad ta'da kasriso ama aada hoos dhigto ancamti calayhim markaana tu dhadig baabaad la hadlaysaaba ilaahay baabaad dhadigaysay subxaana wa tacaala waa laba ayaan darro waaweyn idan markaa waan iska akhriyayaa un qur-aanka sax maaha laakiin qur-aanka kariimka ah waa in mucallim loo yeeshaayo la faa'iidaystaa aada iyo aad looga bartaa mucallimiinta waxaa kaloo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam marka had iyo jeer dhammeeyo suuraddan waxaa odhan jiray maxay aamiin buu odhan jiray axaadiidta saxiixa bay ku sugan tahay bukhaari iyo muslim sida loo odhanayaana waxa weeye qaybta hore waa madulbedel qaybta dambena waa caaridu lisukuun aamiin waana la soo gaabin karaa aamiin laakiin tan aynu inagu akhrino maxaynu inagu akhrinaa aamiin way maaragtay ku laxaadsanayaan taasi macnihiiba meesha uu ka baxaya walaa aamiina albayt alxaraam waa qasad bay markaa noqonaysa alqasd macnuhuna qasad imika maaha halkana waa istajib ilaahay una aqbal baa markaad aamiin leedahay waa ilaahu noo aqbal ducada haddaad miimka shidana qasad bay noqonaysa wax akhriyeyna ma jirada quraa'ada qaarkood sida warash oo kale ayaa had iyo jeer wuxuu akhriyaa madulbedelka ayuu dheereeyaa dee markuu dheeraynayana miimka ma shidayo aamiin weeye markaa haddii dariiqatu qiraa'atu warash la akhriyayo aladiina aamanuu marka waa dheerayn aan shid lahayn qofkii doonaya taa inu akhriya dadku taa ugama jeedaan marka wuxuunaan uga jeedaa uun aamiin in la soco imika markuu imaamku akriyay waladaalliin markuu idhaahdo maxaynu odhanaynaa miimkii baa lagu taagaya shid sida saxda ah waxa weeye in la idhaahdo aamiin qaybta dambe la jiido waktiga la odhanayo marka salaada
imaamku kolkuu yidhaahdo wala daaliin ee uu dhammeeyo ayaa la odhanayaa aamiin man waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu maa taqadama min denbi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaas saasuu ku sheegay qofka aamiintiisu ay waafaqdo aamiinta malaa'igta dembigii hore o dhan baa laga dhaafa aamiinta malaa'igta iyo aamiinta imaamkuna way iswaafaqsan yihin marka aamiinta imaamku kolkuu bilaabo ayay malaa'igtuna bilaabaysa adiguna markaa bilow haddii laakiin imaamka aamiintiisiyo aan la gaadhin adigu aada horay uga sii bilowdo waad qadimanti horaad usoo fadhiisato aamiintaadu tii malaa'igta way seegaysa marka goormaynu inagu aamiin idhaahna waxay dadku odhanayaan wala daaliinta intaan u dhammaynba idaa qaala alimaamu wala daaliin markuu idhaahdo faquuluu fa'du waa tartiib maca tacqiib markaa kadib idinku waxaad tidhahdaan aamiin dhaha marka ha la sugo wala daaliin markuu dhammeeyo aamiin bilaabo la bilow arrintaasna waa arrin aada u muhiima wixeenoo dhan waa wada deg aamiintiiba aamiintii ka horeysa assalaamu calaykum tiina intaanu tii dambe odhanin waynu kacnay marka had iyo jeer masbuuqaa tahay salaada imaamku tiisa uu dhammeeyo adiga wax kuu hadhayin goormaynu kacnaa markaana waxaa la kacaa had iyo jeer marka tii hore uu yidhaahda tii dambe aanu gaadhin maxayna wada qadimay marka waxay u baahan tahay si ujuurtan iyo abaalmarintan loo helo in cibaadada waktigeeda lagu beego intaasuu inoogu joogi doonaa dariskani wahada ma aquluhu waastaqfiru allah wallahu subxaanahu watacaala يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان